soo dhawaad dhammaantood waad isalaamayaa waxaan rabaa maantay waa casharadeen excelka ahaa waaye maanta waxaan rabaa inaan tuso data tablekaas sida wax loogu analyze karayo one variable data table sida wax loogu qaadaa dhigo royal grocery waxaan haystaa financial informationkooda waxaan arkaa net sales inay sameeyeen oo ah cadadan cost of goodska ratekoodan inuu ahaa 55% last year ama sanadkii soo dhaafay intaana ay faa'iido u sameeyeen 129,600 marka waxay rabaan oo ii xil saarteen inaan halkan raydadkan intaan kala badbedelo ay arkaan waxa ay samayn karaan duu raydkan isbedbedelo maxay samayn karaan ma garat ay rabaan marka halkaan rabaa inaan ku dhiso waxaan ka bilaabayaa horta gross marginka waa soo raraa intaan keenaya sababta aan halkaan u keenayo waxaan rabaa meeshaan waa meeshaan ku dhisaayo data tableka aan ku dhisaayo ma garat waxaan ka bilaabayaa 55% aan ka bilaabno 40% 45% ma garat aan hoos wadno ilaa iyo aan tagno 65% waxay rabaa inay analyze gareeyaan marka 40% markay hadday tan ka dhigaan maxay isku bedelaysaa waayo waxaan ognahay hadda 55% halkan waa meeshay joogaan tan markay joogaan tan waxay noqonaysaa waa iswaafaqayaan 129,600 noqonaysaa ma garat marka analyze-kaasay rabaan inay ogaadaan waxaan ku samaynayaa excel waxaana rabaa inaa aragtaan sida fudud oo one click aa ugu generate gareyn kartid information intaan la eg haddii uu badan yahay boqolaal uu yahay percentagedan ilaa iyo 1% kor aa u soconaysidna ay xataa aa ka dhigi kartid waxaan dooranayaa labadan column oo ah labadii column oo maaragtay daatadu ay ugu jirtay waxaan tegayaa data tabkaan tegayaa waxbaan analyze gareynaynaaye waxaan tegayaa what if analyze waxaan dooranayaa you guessed it data table aan la soo baxay okay meesha informationka uu ku jiro rateka aan raadinayo waa ma aha row waa column waxaan rabana waa waxaan markay isbedbedelaan lacagtani maxay noqonaysaa maxay faa'iido samaynayaan markay waxaan isbedbedelaan tanaan taabanayaa one click waa okay waka isku dhamaatay fartaan ka saaraya uma baahna xataa inaan sii fiiriyo ma garat okay aan fiirino marka hadda markay joogaan cost of goodskooda 55% rateka markay joogaan waa ka 129,600 waa iswaafaqsantaas uma 129,600 hadday hoos u dhacaan lacagtooda way dhacaysaa ayagana lacagta saafidaa samaynayso hoos u dhacaysaa laakiin muhiimadda waxa waa ayaga meeshaanay ogyihiin inay joogaan waxay rabaan maxay samayn karaan kor inay u socdaan hadday aggressive noqdaan oo 50 ay ka dhigaan percent cost of goodskan next year waxay heli karaan 144,000 hadday 40gan ay ka dhigi karaan intay very very aggressive noqdaanna waxay heli karaan next year 172,800 managerkii markuu fiiriyey wuxuu dhahay okay this is possible meeshaas 45% waa tegi karnaa ma garat marka cost of goodskii kambaniyadii wax ka gagadanaayay wuxuu la gelayaa baageen aggressive ah oo aad iyo aad oo wax walba isaga fiirinayo oo ula soconayo cost of goodska uu soo gadaayo marka 45%taas kusoo gabagabaynayaa next yearna wuxuu arkayaa 158,400 inuu samaynayo marka lacagta markaa aragtid oo indhaha ku aragtid oo sidaan oo kale hadda uu indhaha ugu jeedo waxay dhiiri gelinaysaa wax kasta uu sameeyaba inuu halkan uu ka dhigo si uu u helo lacag badan akhyaarta janalkayga ku xiran maanta waxaa idin tusay sida loo isticmaalo data table especially one variable data tableka oo aan ku generate garaynay ama aan ku soo saarnay information badan oo aan ku analyze garaynayno percentageyada markay isbedelaan lacagaha uu kambanigan la yiraahdo royal grocery uu samayn karo waxaa inoo balana cajaladaha dambeeto oo aan soo geliyo janalkan iyo halkan makaankan sidaas iyo nabadgelyo